waxaanu ku bilaabaynaa warka degdega ah ee ku saabsan dowladda waddanka Masar oo telefishinku goor dhaweyd uu sheegay in madaxweynihii hore ee waddankaasi Mohamed Morsi uu geeriyooday kadib markii uu ku miirbeelay sida telefishinku uu sheegay maxkamadda dhexdeeda. Morsi waxaa la doortay 2012 markii hogaamiyahaasi ururka aqwaan muslimiinka ay awoodda ka tureen ciidamada militariga sanad kadib 2013. dowladda hadda jirta waxaa loo haystay dhowr dacwadood. haddaba iminka waxaa istuudiyaha igula sugan oo wararkaasi la socday عبد الحافظ عاول اسماعيل عبد الحافظ maxaa ugu dambeeyay farxan aad ayaad u mahadsan tahay ilaa imika waxa horta la sheegay in loo malaynayo in uu ku dhacay madaxweynaha hore ee dalka Masar shalal amaba ay qayb qalashay waa dhintay cusbitaalka ayaana meedkiisii la geeyay imika ayaana la bilaabayaa baaritaan sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen marka saacadaha soo socda ayaa la ogaanayaa in wadnuhu istaagay in wax kale ku dhaceen hadii la raali ka noqdo marka intii muddo ahayd dacwadda ku socota la leeyahay maxaa loo haystay waxa loo haystay in ururka Hamas ururka hogaamiyaha uu ahaa al-shabaab ay caawinayeen ururka Hamas Falastiin iyaguna xaggaasi ay isku hayaan Israa'iil waxa la sheegay in wax lagu eedeeyay dibadbaxyadii iyo kacdoonkii ka dhacay dalka Masar in ururka aqwaan muslimiin uu qayb ku lahaa hatta ilaa heerar argagixisa inay jireen ayaa farxan jiray marka dacwadu way dheeray waan gartay waxa tiri aqwaan muslimiinku hogaamiye oo ahaa laakiin ninkan waa la soo doortay Soomaaliya markii militariga imaan waa hogaamiyaha kaliya ee sida dimuqraadiga loo soo doortay taniga intii uu kacdoonka ka dhacay kacdoonkii carabta sanadkii 2013 isla 13 isaga ayaa la doortay waan gartay marka madaxweynihii shanaad oo la soo doortay ayuu ahaa oo si rasmi ah sida sheegtay dimuqraadiga ugu soo doortay laakiin waqtigiisa ma sii raaginba sanad kaliya ayuu xilka hayay markii militariga ay la wareegeen xukunka ee afgambiga ka dhacay dalka Masar farxan marka caafimaadkiisa xumaama la isdhihi karaayo ama dayacaad baba jirtayba sanadihii ugu dambeeyay marar badan ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenadii u doodayay waxa ay sheegeen in caafimaadkiisa uu aad u liitay hatta waxa la baarayaa inuu jiro inuu wadna xanuun hayay maalmihii ugu dambeeyay oo shalal kalimka la sheegaya ama in dhinac qalalay hadii ay run noqoto wadna xanuun iyo waxaas ayaa la xidhinaya ayaa la leeyahay laakiin cusbitaal ayaa la geeyay mar dhow ayuu maanu soo baxaya farxaan oo sida dhabta ah ee wax u dhaceen aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdi xaafid caawil ismaaciil oo nooga waramayay wararkaasi ugu dambeeyay